maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse Wehriyaan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa maanta kormeer ku tagay dhaambiyood laga hirgelinayo duleedka magaalada Caynaba dhaamkaas ay hirgelinayaan dhalinyarada gobolka Saraare isla markaana ay ka caawinayso dowladda hoose ee degmada Caynaba waxaana mas'uuliyiintani ay dheendheeyeen halka uu marayo dhaamkani kormeerkaasi kadib ayaa warbaahinta waxa la hadlay maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf xogayaha dowladda hoose degmada Caynaba Cumar Maxamuud Muuse iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Caynaba waxayna ku dheeraadeen faa'iidada uu dhaamkani u yeelan doono bulshada degan degmada Caynaba arkay qayb galeen dhalinyarada gobolka Saraar aqoonyahanada iyo maamulka degmada maayirka iyo xogayaha iyo fulintu saruntii aad iyo aad ugu faraxsanahay oo saaka gabagaba taagan waxaan leenahay dhalinyarada ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka in saaro waa wadankiini waa gobolkiini waa degmadiini waxa uu qabtaa waxa ay ugu hormarsateen oo wixii dhibaateynaya dhalinyarada iyo caruuraha iyo waxaana waa xilliga roobowga inta loo dhameeyo hawshiisa wax leenahay laga foojignaado halkan waa dhaamkii Caynaba loo qoday horta markii hore dhaamka waxa qoday iska wuxuu qabsaana lagu dhiso cid lacag macni qalabku ma hayn kiro dawladda hoose keentay waxa weeyaan waxba ma qabsoomeen haddaan qalabka dawladda hoose lahayn leenahay kulli intii maskaxdooda ka soo maaxatay iyo muruqoodaba waxaan leenahay ilaahay xasanaadka u geliyo maanta waan boqosho ku nimid si aan u tijaabino ama uga eegno cagafta waxay ka waday dhaamka iyo inta u hadhay ayaan waxaan ku soo marnay dhaamkii wadinka dhowdhowiya dhaamku xariista ugu dambeysay unba u hadhay insha allah wiigan unbay noqonaysaa dhaamka waxaa loo hayaa haddeer taarki waa loo hayaa oo dhalinyaradii taarki way keentay waxaana fikirkaasaa laga sheekeeyey le dhalinyarada ee dowladda hoose unbaa isku geysay dhaamkan dhalinyaradii ka soo shaqaysay iyo bulshada reer Caynabana halkan aad iyo aad baan uga mahad celinaya waxqabadka ballaaran ay ka wadaan degaankooda iyo gobolkooda inta ka badan bay u baahan tahay waayo waa dhul biyo qadhaadh leh meelaha cariska unbaa laga samayn karaa dhaamukaas oo kale iyadoo qalabkan aanu cagaftani ay ka mid tahay waxyaabaha dowladda hoose horumarkay ku tallaabsatay maantana aanu rajaynayno annaka uga mahad celinay marka koowaad wasiirka arrimaha gudaha oo berigaanu cagaftaa doonaynay deynteeda iyo abaalkeedaba uu nagu leeyahay oo uu nala tabantaabiyey maantana waxaanu ka codsanaynaa waxaanu ka doonaynaa tantii ka weynay oo tii qodi jirtay dee dhulka ee gacanta lahayd waanu insha allah bismillaahi kariim waanu tegaynaa waxaanu ka rajaynaynaa annagoo taa horena wasiirka uga mahad celinayna inuu taa dambana sidii berigii noola qorsheeyey si ka fiican noola sii qorsheeyo dhalinyaradii ka soo shaqaysay iyo bulshada reer Caynabana halkan aad iyo aad baan uga mahad celinaya waxqabadka ballaaran ay ka wadaan degaankooda iyo gobolkooda hadday xagga nadaafadda tahay hadday xagga bilicda tahay iyo hadday xagga kale horumarkaba tahay tani ka mid tahay aad iyo aad baan uga mahad celinaya maantana gobolka waxa weeyaan dad gacmaha is haysta Salabaan Elmisiid telefishinka caalamiga Ariel Caynaba anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahe run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir